وانطفت حروفي في ربوع بياني وأتى القصيد بأروع الألحان وفي أرض خير قد بادت مسجوعة مجدات بنت القصير قد سارت بالنور في الأنحاء والأركان. meeshaan waa guriyo ilaahay mahadiis ma garanaysaa awalla aniga xageega ka soo jeeday haatanna aan ku wareejiyay ma garanaysaa dacwada in loogu shaqeeyo oo hadda waxay ku magacaaban yihiin kow dugsi quraan oo ka kooban qolkan hoolka oo aan dhex taaganahay laba qol oo ayaguna halkaan ma garanaysaa dhinaca naga xigo halkaan ka furan barkadii musqushii iyo dayrkii oo 20 ah oo hadda aynu harsan tahay dhulka noo harsan uu yahay 25 halkan waa Jariban madrasa uu ka dhisay Salaad Maxamed Jaamac halkan uu ka dhisay oo guriyo hore u lahaan jiray waqfay oo aan maanta ka wareejinayno oo mas'uuliyadeedii aan wareejinayno oo hoos imaanaya dacwada magaalada Jariban oo insha Allah ta'ala dugsi quraan uu waqfay mustaqbalkana ilaahi fadliga oo rajaynayo inuu masaajidna la meeshi laga aasaaso oo ilaahay hadduu ina gaarsiiyo insha Allah ta'ala iyaduna oo yeelan doono dugsigu masaajid arinta ayaan maanta halkan isugu nimid waa arin aad iyo aad runtii wax loogu farxo weeye gurigan hoolka ay weyn 8 mitir 5 mitir weeye qol kale ayaa ku furan oo mataqaanaa si mataqaanaa halka macallin uu labadii ardayba u taxakumo wiilashii iyo gabdhihiiba ilaahay fadliga walaalayaal arinkaas ayaa inoo soo siyaaday madrasadatan loo dhisay mataqaanaa lagu barto quraanka diinta ilaahay lagu barto oo halkaan galabtay aan mataqaanaa joogno oo ku taala degmada Jariban maxaan ku raahdaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madrasadatan dadkii ka soo shaqeeyay oo mataqaanaa uu soo hagaajiyay oo hore u lahaa haatanna mataqaanaa ugu talagalay oo ku wareejiyay dacwada iyo mataqaanaa diinta ilaahay lagu barto aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajr iyo asanaad idinka siiyo waxa weeye waa sadaqa jaariya